ama 4.5 ha ahaadaano ama safiirro idinka maqan ha ahaadaano ama isbitaalla baahi u qabtaan ha noqdaano waxa ay sheegaysaan oo dhan waa wax dhab ah oo jira laakiin waa wax u baahan dawladnimo in lagu xalliyo waxa su'aasha ay weydiinaysaan waxa waaye dawladdu maxay waxaan u qaban weysay su'aasha inaan isweydiino ay tahay waxa waaye horta dawladdu sideen u dhisnaa si ay wax u qabato dawladda hadda jirta ku dhawaad 30 sano aan dawlad la'aan ahayn Soomaa ku dhawaad 30 sano aan adduunyada u qaabilsanayn xumaanta iyo qarbudaada shaqo fiicanna waa ka soo qaban ku dhawaad 30 sano aan wax duminaynay aan la ku yaqaanaa inaan wax duminaynay markaas wali dad naga mid ay sii rabaan sidii hore sababtoo waxa laga yaabaa inay faa'iido ku qabeen intaas su'aasha marka hadaan dib idin kugu soo celiyo tobankii qof oo meel marta 7 dhalinyaro ah idinkoo kale adigoo kale way adigoo kale tobankii la arko ama kuwa idin ka yaray dadka hadda nidaamka dawladda ku jira boqolkiiba hal ma dhamo bulshada Soomaaliyeed oo awoodda gacanta ay ugu jirto oo la rabo inay wax bedelaan boqolkiiba halkaas waxa ma bedeli karaan boqolkiiba 70 maskaxda caafimaadka qabtay haddaysan iyagu intay is abaabulaan wax bedelay midna waxaan rabaa in aad ugu qanacdiin qof intay wax idin soo qurqurxiso idin keenaysa male haddaadan xoog uga keensanina runaan rabaa in idin sheego sababtoo ah dal waxaan ka shaqeynaynaa xumaantu ay wanaagga noqoto waxaan caadi ahayn ay caadi noqoto yani dal waxaan ka shaqeynaynaa ay caadi iska ahayd in musuqmaasuq uu jiro oo la dhahayo qofku markuu dawladda ama dalka wax ka xado qofkana waa qof raga dal waxaan joognaa leeyahay dadkaan iraado warjindiinooyinka ka guura hal idin dhisay war qabyaalada iska daaya war musuqmaasuqa joojiya dadkii dalka u soo baxay oo wax ka bedeli lahayn idinka hadaa aamintaan fikir ah marka dawladdan wax ka sugaynaa dawladdana aniga aan aaminsanahay idinka aad tihiin shaqa taal Soomaa shaqa noo taal waxaan rabaa markii inaan kugu bishaareeyo waddankeena waddan aad u fursad badan hadda inta yaroon joognay isbedello waxaan sameynay aan aaminsanahay inay mustaqbalka wax idinku tari doonaan markaad idinku awoodda la wareegtaan ama isbedel dhaqaale oo rajo fiican leh oo deyn cafis ku dhow isbedel amni oo shaqo fiican aan ka qabanay oo ciidamada dib habeen aan ku sameynay ugu yaraan la ogyahay qofka mushaarka la siinayo cid uu yahay aan cid loogu dhiibayn isbedel siyaasadeed oo aan rabno dalka in dastuurna laga hagaajiyo doorashadana nooc kale ay u dhacdo noocyada hore ka duwan isbedel arrimo bulshadeed oo dawladdu markii ugu horeysay adeeg bixiso sababta hadda aniga ila fadhidaan oo leedeen waxaan rabnaa dawladda adeegaasan ka rabnaa waxa aaminsantiin dawladdu inay hadda sida hore ka duwan tahay aniga laakiin waxa aaminsanahay wali shaqo badan ay dhiman tahay waxa kale oo aaminsanahay dawladda idinka inaad tihiin hadii gabdhaha iyo wiilasha halkan jooga iyo kuwa xudur jooga iyo kuwa cadaado jooga iyo kuwa caabud waq jooga kuwa boosaaso jooga kulligooda is abaabulaan ay yiraahdaan ma aqbalayno wixii hore dadka xamar jooga waxay ku khasbanaanaan inay isbedelaan ogaada kuwa hadda nidaamka ku dhex jira kaligood ma keeni karaan isbedel haddaan isbedel banaanka uga imaan isbedelkan idinka matala waxyaabo waxaa jira marka waddanka ay khasab ku tahay in laga bedelo boqolkiiba 50 ugu yaraan shacabkeena waa gabdho ama haween waxaan rabnaa in waddankeena rag kaliya uu ka shaqeeyo boqolkiiba 50 shacabkeena aan rabnaa inaan banaanka intaan iska dhigno adduunyada boqolkiiba 50 kula tartanno يعني كينيا لما ترتمي كرنا أما رواندا لما ترتمي كرنا نرويج سويدن بس كذا وحاربنا مسكحة خراء ودوجودي وقبيلات دو كسلاسنات ومسوماس كسلاسنات ونجعليس كسلاسنات إنهم كم مشغول سنام
maskaxda ahayd in dawladnimada laga ganacsado adduunyo kula tartami ma karno waxyaabahan hadda ay sheegaysiin oo dhan waa wax aad u sax ah laakiin aniga fikirka aan aaminsanahay waxay tahay mustaqbalka in dad la meeleeyo oo lagu meeleeyo jagooyin dawladeed because qabiil hebelay matalaan dalkay dhibaato u keenay أنا waxaan aaminsanahay mustaqbalka inaan samaysano nidaam qofba qoftu ka aqoon badan yahay dalka loo dhiibo xataa haddii afartiino isla dhalata ay tahay very good xataa haddii sideediino walaala ay tahay laakiin imagine marka la yiraahdo qabiil hebelna intaasoo safiiran siinayna daday soo xulaayeen ama la keenaa marka African Unionka la joogo ama European Unionka la joogo ama UN-ta la joogo dadna matalaan u baahanaa oo حقوق ضدك Soomaaliyeed difaaci kara hadda sidaas uma dhaqano waxaan loo baahan yahay isbed waxaan ku qanacsanahay wixii hore